qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Burco ayaa cabasho ka muujiyay gaadiidka bajaajta oo magaalada Burco looga yaqaano tigaha kuwaas oo sheegay inay dib ku hayaan meheradahooda kadib markii ay istaamo ka dhigteen wajahadaha hore oo ay uga kala gooshaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Burco ganacsatadu waxay sidoo kale dawladda hoose iyo maamulka gobolka ugu baaqeen inay u sameeyaan bajaajta istaamo u gaar ah oo ay uga rakaabsadaan xaafadahaasi waana kuwan ganacsatada oo ka hadlaysa amurahaasi kusoo dhawow telefishinka SBS adiga magaca ku bilaabaya magaca Xisaan Jaamalaan Shaafici waxaad ka mid tahay meheradaha kala duwan ee tigu ka horgooshaan iyagoo u baxay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Burco ka waran saameyn inta leeg bay ku yeeshaan wallahi saameyn aad badan bay nuqleen walaal waayo waxa la socda aan qayl mas'uul ahayn dad aan maxay tahay dhalinyaro ciyaal dad waxaan ku ri tuud wax walba soo raaci karaan hawl badan marka arrin meel ka dhacayo faa'iido iyo faa'iido rabo laga helaa labadaba ka waran adiga xagga wax dhaqaalaha ma ka soo galaan ku soo kordhiyaan bulshada kale waxtarna weyn dhibna weyn labadaba ka waran dhibaatooyinka ku hayeen maxaa kamid ah dhibaatooyinka waxa kamid ah in maxay tahay ay isku kaaglayeen in dad aan khayr mas'uulahay wadaan inay ciyaal wadaan inay harar la dhisaaray inaan meel ay meeshan marayna meesha wadada noo cuurtaan meel baarki aan ahayn xukuumadda maxaa faraysaa xukuumadda waxaan faranaynaa istaan iyo meheradaha ay suuqa istaan kala saaradii ay chance weelayaan SBS halkan meheradaha ku haysano waxa ka baxatiga horteedii kadinkii bay naga xidheen waxaan u sheegayaa maayarkii xukuumadda inay siiyaan space ay ka baxaan oo laga rakaabiyo oo laga raro imika gaadhiga wax naga iibsanayay wuxuu istaagayaa siijeedka laamiga yuu istaagaya aqasoo inuu qare ama dadka wax naga iibsanayay naga tigayaan wax aqbanayaan meherada kale waxaana xidha tigaha naga kaxeeyo naga raro oo loo sameeyo boos ka baxaan istaan loo sameeyo gaari leeyin halkaasay ku jirayaan sabigii maawe dumarkii soo adeeganayay islaantii weynayd halkaasay ku jirayaan carruurtii cidna ka qaban mayso waxaanu ka codsanaa xukuumadda in boos la geeyo loo raro ay ka baxaan si istaamada basaska leeyo kale la geeyo naga kaxaya dib bay nagu hayay khadiyad baan ka taagan saame marka maxaa dhibaatooyinka kugu hayaan kamid ah way shaqayo hor gudbayaan oo rasqiga ka dadkii wax naga iibsanay isku gudbay risqiga iskaga ka xirayaan waan ku xirayay riddi way taagan ka waran xukuumadda maxaa u baayaysaa dawladda hoose gacanta ku haysaa dawladdu inay tigaha basar nooga samayso iyo nimanka islaynaya iyo nimanka meheradii hor taagan tugu anaga dhibaato ma taxbiib inoo soo koriyo maanaga faa'iido ku qabtaan adigu faa'iido ku qabnaa waa bulsho kamid weey gaskaadis kaashtan gobolka togdheero xool anu faa'iido ku qabnaa waxba naga iibsada kino dadka natiijana way yaacaan waliba taana way ku xun marka maxaad xukuumadda u diraysaa baab xukuumadda waxaan dirnaa inay maamulkooda ay xoojiyaan tigaha kaashtada maamulkooda waa dad ganacsato dadkii bulshada kamid ah weeye laakiin deen laga saaray kalama laakiin waxa weeye xoojiyaan ay maamulka tigaha mas'uuliyiinta tigaha xoojiyo uma hayaan horta wax kasta oo soo kordhaa waxay leeyihiin dhib iyo dheef marka dhibaato horta weyn anaga naguma hayaan iyaga iyo annaguna waan isku xidhannahay ganacsiga dadka wax laga iibsado way noo keenaan xooga iyo runba ku jirtaa rag tugulo iskuma jiraan rag mas'uuliyiin oo badanna way ku jiraan xoogay dhallinyarana way ku jirtaan marka in yaroo dhibaataa wuxuu weeyaan oo iyaga xaggooda ah annaga xaggayga hayn inay dadka ay u shaqaysa dadka shacabka ay ka shaqaysanayaan ay moobilo lacagta loogu diro ay qaataan wallahi marmar way dhacdaa ay dariiqu noqdo meeshu waa fargeys oo ciidha ay noqoto way dhacdaa oo matalo kale meeshu ay aad u boosto annaga iyagu waxba isla arbashano bilaad saameyn aad iyo aad fara badan bay nagu yeeshaan tagaas maray isku gaaya hor laayeen iyo maray wadadaba naga xidhaan ma jiraan wax faa'iido aad ku qabto marka laga imaado dhinta wallahi ma jiraan wax la leeyahay faa'iido aan ku qabno ma jira dhibaan isku soo wada duubo gaadiidkani waa mid si fudud iskugu xidha suuqa iyo xaafadaha kala duwan koonayaasha magaalada balse dawladda hoose oo ku shaqo leh maamulka gaadiidkan yaryar ayaan u meeldayin waxayna noqotay mid aan u samaynin goobo u gaara gaadiidkan si ay u badbaadaan ganacsiga bulshada iyo wadooyinkuba Axmed Nuur Ciise Maxamed Samrawi telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Burco.